السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلام خيارتك وحرن جنال كميد سيل. maanta waxaan idin wadaa cashir cusub. cashirkaas oo ka hadlaya condition markaan ka hadlayno waa statementigaas oo loo isticmaalo in programming language. So cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay PHP. waxaan sameyn doonaa programkaas oo ah Google Search Engine, yani program data laga raadinayo. tusaale ahaan waxaad weydiin kartaa what's computer, jawaab ku soo siinaa computer is an electronic automatic machine which you can get data from external as input form, processed and produce the desired result. data noocaas oo kale ku soo siinaa. So programku waa barnaamij aad u wanaagsan. programkan waxaan ku diyaariyay maadada loo yaqaano PHP-ga. so programku wuxuu noqon doonaa sida soo socota. so intaan programka gudaha u sii galin, haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag oo share garay. sidoo kale haddaad videoga ka heshaa like sii ama like saar. so sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad xog la wadaagto, commentiga igu soo qor. commentiga waxaad ku soo qoraysa waxay noqon doonaan inaad wax ku wareertaa ama inaad waxyaalo kale oo aad u baahan tahay inaan kugu soo gudbiyo inaad meesha igu soo sheegtaa. so waad ku mahadsan tahay haddaad commenti ii soo gudbiso. okay, videoga aan bilowno. videoga wuxuu noqon doonaa sidatan. program horto aan rabo inaan sameeyo wuxuu noqon doonaa noocan. waa programkan oo kale. tusaalehaan meeshan haddaan data ku qoro, tusaalehaan waxaan ku qori doonaa computer ama computer science, kadibna waxaan dhihi doonaa search. so computer science is a study of computers and mujeda meeshan wuxuu kugu soo qoray computer science waxa la dhaho. so datada halkan la geliya sida google-ka oo kale waaye, wuxuu kugu soo qori doonaa halkan. so waxaan sameyn doonaa tusaalehaan waxaan gelinaynaa wax loo yaqaano islamic religion markaan gelino waxaan leenahay search. wuxuu ku soo qori doonaa meeshan islamic religion waxay tahay. so aan bilaawna marka videoga. so waxaad u baahan tahay horto inaad uu active ku ahaado samka, yani samkan inuu active ku ahaado. hadduu active ku yahay it means waxaa laga wadaa apache-ga inuu kuu daarnaado, sidoo kale mysql-kana uu kuu daarnaado. so programka aan bilaabana marka. programka markaan rabo inaan bilaabo, folderka aan hore u samaystay test1 uu ahaa folderkayga, waxaan u baxsan doonaa folder. waxaan dhihi doonaa tusaale ahaan data search. programkayga wuxuu noqon doonaa data search.php. data search.php waxaan ka wadaa yani data meel laga soo raadiyo. so maadaama datada aan soo raadin doono waxaan u baahnaan doonaa inaan html ku qoro. html-kaas aan ku qoraan wuxuu iisoo muujin doonaa inaan data gelin karo, datana aan xareyn karo. so waxaan leeyahay html aan isticmaalaa. waxaan leeyahay html5 aan isticmaalayaa, kadibna waan save garaynaa. so documentiga meeshaan ku qoran waxaan ka dhigi doonaa data search markaan dhaho documentiga meeshaan ku qoran data search aan leeyahay. so data search waxaan ka wadaa markaan data search meeshaan dhahay, tusaale ahaan hadda meeshaan markaan booqdo ama file cusub aan rabo inaan raadiyo, waxaan leeyahay tusaale ahaan testy. okay, meeshaan ujeeda testy local hostiga aan u baahanahay aan qoraa. tusaale ahaan local hostiga aan rabo wuxuu noqon doonaa local hostiga aan u baahanahay waxaan ka dhigan doonaa midka aan u baahanahay. tusaale ahaan meeshaan waxaan ku qori doonaa data search.php. marka data search.php wax kuma qorna, wax ma ku diyaarsana. si aan u ogaado inuu shaqeynayo in kale, waxaan sameyn doonaa bodigana waxaan ku diyaarin doonaa wax loo yaqaano tag h1 ah. so tag h1ka markaan ku diyaariyo bodiga, waxaan leeyahay tagan iga soo xir oo h1ka. tusaalehaan waxaan ku qori doonaa meeshan google. waxaan ku qori doonaa meeshan tusaale ahaan qalday intanagey, waxaan ku qori doonaa google. so markaan google ku qoro aan save gareeyo waxaan leeyahay tusaale ahaan refresh. so refresh markaan dhaho waxaan ogaan doonaa meeshan datada google ay kusoo qorantay waa uu shaqeynaa. so sidoo kale waxaan ku xiran doonaa css. intaanan css ku xirin horta waxaa iga horeyso inaan sameeyo datada meesha lasoo gelin lahaa. so data si aan usoo geliyo waxaan diyaarsanaa wax loo yaqaano formkaas oo datada laga soo xareyn doono. formkan intaan ka xiran doonaa. formka markaan xiro meeshaan formka wuxuu noqon doonaa typekiisa ama noociisa, ama formka wuxuu noqon doonaa methodkiisa wuxuu noqon doonaa qaabka, wuxuu noqon doonaa wax loo yaqaano post.
methodkiisu wuxuu noqon doonaa boost. sidoo kale actionka uu sameynayo wuxuu aadi doonaa yani actionka adaa u sameysanaysid yani automatically waxa meesha aad geysid uu aadi doonaa. so meeshaan aan imaanayna waxaan leenahay input type input aan isticmaalaynaa maadaama waxaan gelinayno data. si aan data u gelino before input inaan intaan isticmaalin waxaa ka horeysa inaan meesha kusoo qorno tusaalahan data search engine ama ciwaan aan u sameyno. waxaan leenahay div tag aan isticmaalaynaa. div markaan dhaano divkaan iska soo xiraynaa. divka markaan soo xirno okay markaan divka saas usoo xirno hoosaan tagi doonaa. meeshaan waxaan ku qori doonaa classka aan u bixinayn wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan header ama ciwaanka waaye. markaan header u bixiyo meesha waxaan ku qori doonaa marka h2 aan leeyahay data search engine ama meel wax laga raadiyo data search engine waaye. so waxaan leenahay h2 aan iska soo xirno kadibna save gareynayna. so markaan saas u save gareyno waxaan leenahay refresh. waxaan arki doonaa meeshaan inaan noogu soo qorantay data search engine. so data search engine kan wax kale ma qaban doono wuxuu noqon doonaa ciwaankan. tusaale ahaan hadda meeshaan fiiri meeshaan waxaa noogu qoran mutus help search engine. so sidaas oo kale waxaan rabaa inaan saas ka dhigo. so markaan rabo inaan saas ka dhigo wax kale ma sameynayo. headerkan waxaan ku xiri doonaa css ta aan rabo inaan sameeyo file cusub aan samaysana waxaan u bixin doonaa data search.css aan leeyahay. data search.css markaan dhaho wax kale ma sameynayo. waxaan tagi doonaa meesha titleka lagu qoro. meeshaana waxaan ku qori doonaa linkiga aan u baahanahay. waxaan leeyahay link relationka wuxuu noqon doonaa style sheet waaye. relationkeygu waa style sheet. so markaan style sheet dhaho wax kale ma sameynayo. meeshaan waxaan ku qoran doonaa hiriif ama linkiga meesha uu kaga xirmaayo ama css ta. css fileka waxaan ugu qoran data search ama data search.css. okay markaan saas dhaano tusaalehaan .css data search.css waa midkan oo css tan ugu qoran tahay. so markaan meeshaas joogno data search.css markaan joogno wax kale ma sameynayo. tusaalehaan waxaan rabaa inaan bedelo bodyga. so waxaan leenahay bodyga color aan sameynayna ama background color aan sameynayna tusaalehaan si aan u ogaano inuu bodyga shaqeynayo ama css ta ku xiran tahay. body background color waxaan ka dhigaynaa tusaalehaan orange aan ka dhigaynaa. markaan orange ka dhigno aan save gareyno control s aan dhahno oo ku laaban doonaa. waxaan leenahay refresh. waxaan ogaanaynaa inuu ku xiran yahay in kale uu ku xiran yahay data structure-ka ama yani styleka iyo waxay isku xiran yihiin programka. so waan ka laabanaynaa meeshaan wax kale ma uga baahni. okay waxaan leeyahay marka marginka waxaan ka dhigan doonaa marginka wax kale ma ka sameynayo 0 aan leeyahay. paddingkan waxaan leeyahay 0. paddingkan waxaan leeyahay 0. so markaan bodyga saas ka dhigo oo aan refresh dhaho tusaale ahaan markaan refresh dhaho data saas ay noqon doontaa. so waan ku laaban doonaa meeshaan waxaan tagi doonaa divka aan isticmaalay magaciisa header waa classka waxaan ku sheegnay markaan isticmaalayna dot aan isticmaalayna markii la joogo in css. so dot headerka colorkiisa waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan colorka cadaan aan ka dhigaynaa. color waxaan ka dhigaynaa white cadaan aan ka dhigaynaa. colorka markaan cadaan ka dhigno sidoo kale backgroundka waan bedelayna waxaan ka dhigaynaa black. backgroundka waxaan ka dhigaynaa black. so black markaan ka dhigo backgroundka oo aan save dhaho refresh aan leeyahay. kadib markaan refresh dhaho waxaan arki doonaa backgroundka iyo colorka inay kala duwan yihiin. so meeshaan waxaad ugu jeedaa saan inuu yahay. so wax kale ma sameynayo waa ku laaban doonaa programka. waxaan leeyahay width aan u sameyn doonaa. widthkiisa wax kale ma ku sameynayo. waxaan leeyahay 50% ka dhig. 50% markaa ka dhigtid widthkiisa wuu soo yaraan doonaa. precise ku dhici doono. okay wuu soo yaraada ujeedaa. okay wax kale ma sameynayo. sidoo kale text align textigiisa ama qoraalka waxaan geyn doonaa centerka. text align qoraalka waxaan geyn doonaa centerka. so qoraalka markaan centerka gedeyno control s aan leenahay. kadibna waxaan leenahay refresh. markaan refresh dhaano qoraalka wuxuu tagay centerka. wax kale ma sameynayo oo ku laaban doonaa. waxaan sameyn doonaa margin inaan sameeyo inaan sigto. margin waxaan leeyahay margin leftiga markaan rabo inaan sameeyo wax kale ma sameynayo. waxaan leeyahay margin left aan leeyahay. margin left markaan dhaho waxaan qori doonaa tusaalahaan leftiga inaan aado rabaa 40% inaan aado. 40% markaan leftiga aado minus 40% uu sigan doonaa. so 40% waa badan tahay. tusaalahaan waxaan sigan doonaa 20%. 20 aan sikanaynaa. so 20 markaan sikano waxaan leenahay refresh ama waa save gareynayna control s refresh aan leenahay. okay weli wax yaraa ka maqan 25% aan ka dhiganaa meeshaan. 25% markaan ka dhigno save aan leenahay. okay markaan save gareyno waxaan leenahay refresh.
so wakan samarku yahay data search engine waxaan rabaa bedding inaan u sameeyo beddingka aan ka hadlayno wax kale maaha waxaan rabaa beddingka aan u sameeyna wuxuu noqon doonaa textiga inuu hoos uga soo sigto bedding waxaan leenahay tusaalahan 10 pixel markaan dhahno waxaan leenahay refresh so bedding wuxuu noqon doonaa sidaan oo kale yes waa ujeedin datada beddingkeeda saas uu noqday so sidoo kale waxaan sameynaa margin top inaan wax ka soo sigto margin top markaan rabo inaan wax ka soo sigto waxaan leeyahay margin top kor inaan ka soo sigtaan rabaa waxaan leeyahay 10 pixel kor iga soo sigay so 10 pixel markuu kor ka soo sigto waxaan leenahay refresh so ujeedaan 10 pixel uu ka soo sigtay kor wax kale ma sameynayo marka dambe waxaan sameynaa tusaale ahaan boxkan aan rabaa marka inaan buuxiyo methodka boxka lagu qoraa wax lagu qoraa inaan soo buuxiyaan rabaa si aan usoo buuxiyo wax kale ma sameynayo meeshaan h1 ay ugu qoran sax anoo meeshaan joogo waxaan sameynaa meeshaan aan tagi doonaa div kalaan sameysana divtan markaan sameynayo waxaan u bixin doonaa classkaas aan dhihi doono meesha lagu qoraayo waxaa waaye sergi meesha lagu qoraayo noqon doonaa classkan so classka markuu meeshaas maraayo divka waan xiranaa divka markaan saas u xirno waxaan leenahay sergigan dhexdiisa waxaan ku qori doonaa marka bodyga divka wax loogu gelin lahaa tusaale ahaan bodyga wuxuu noqon doonaa waxaan u baahannahay so waxaan isticmaali doonaa divkan dhexdiisa waxaan ku isticmaali doonaa wax loo yaqaano another div kale aan isticmaali doonaa divkan wax kale maahan waxaa lagu isticmaalaa markaa ratid inaad colorka iyo backgroundka iyo inuu kala space u kala baxo div classka la isticmaalaa div classka waa muhiim waxaana lagu bartaa CSS stylingka so divkan aan isticmaalayna classka wuxuu noqon doonaa wax kale ma noqon doono wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan inputka waaye mid meesha wax la gelinayo tusaale ahaan inputka waa kaas okay inputka markuu saas yahay ama waxaan isticmaali doonaa classka CSS aan tagi doonaa waxaan leenahay div classka aan rabo inaan wax ka bedelo wuxuu noqon doonaa sergiga so sergiga markaan rabo inaan wax ka bedelo ama color aan siinayo waxaan leeyahay serge markaan saas dhaw sergi color aan siin ama background color aan siina waxaan leeyahay backgroundkiisa waxaad ka dhigtaa backgroundka waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan backgroundka waxaad ka dhigtaa orange ka dhigaysaa so backgroundka markaan orange ka dhigo it means waxa meesha la soo geliya waxay noqon doonaan orange so hadda waa data ku jirta laakiin data markii la soo geliyo meesha waxay noqon doontaa orange so si aan u ogaado inay orange tahay meesha waxaan tagi doonaa inputka waxaan ku sameyn doonaa input type aan qori doonaa inputkan sameyn doonaa input typekiis wuxuu noqon doonaa text in la soo geliyo qoraal text in la soo geliyo sidoo kale action ama waxaan seenanaa wax loo yaqaano type sidoo kale inputka markii la joogo meesha wax laga soo akhriyo name waaye namekiisa waxaan ka dhigi doonaa data ama search aan ka dhigi doonaa meesha wax laga raadinayo tusaale ahaan search markii la isbaraayo html-ka iyo php-ga search waaye sidoo kale wax kale ma u baahni waan xiri doonaa inputka sidoo kale hoosaan tagi doonaa waxaan leenahay inputka naga soo xir inputka markaad saas usoo xirtid okay inta saanu ku egaya inputka sidoo kale waxaa siin doontaa wax loo yaqaano placeholder means meesha wax kusii jiraayo marka intaadan wax ku qorin wax loo yaqaano placeholder jiro oo datada lagu qoro tusaale ahaan enter waa inaad gelisaa data xog geli meeshaan to search si loo raadiyo data geli to search sida loo raadiyo xog geli meeshaan lagu dhihi doonaa okay xog geli marka lagu dhaho meeshaan enter data to search xog si loo raadiyo meeshaan xog geli lagu dhihi doonaa so xogtaa gelin doontaa waa placeholder okay aan refresh dhahano aan fiirino waxaan leenahay refresh meeshaan waxaan ujeedaa marka colorkii inuu yahay colorkii laakiin backgroundka uu fadhinin so background si aan u fadhiisiyo aan isku leekaysiyo wax kale ma sameynayo anoo meeshaan joogo sergiga wax kale ma isticmaalayo waxaan leeyahay widthkiisa waxaan dhan hal qaab aan ka dhiganaa widthka anoo u baahan halaanaan soo koobiyeysanaa markaan saan usoo koobiyey intaan ku paste gareynaa so markaan meeshaan ku paste gareeyo control s aan leeyahay waxaan ka saari doonaa keliya wax loo yaqaano text align center so text align centerka markaan ka saaro refresh aan leeyahay ama control s markaan control s dhaho waxaan leeyahay kadib refresh waa ujeedaa meeshaan waa isla ekaatay laakiin beddingka wuu kor u kasoo sigtay so si uu saas ugu soo sikarin waxaan sameynaa wax loo yaqaano waxaan sameynaa tusaale ahaan meeshaan beddingka uu 10 pixel ama marginka uu kasoo sikanayo waa iska dhaafi doonaa meeshiisuu ka bilaaban doonaa control s aan leeyahay kadibna waxaan leeyahay refresh inina soo isku darsameen waa ujeedaa data search meesha xogta la gelinayo waatan xogta intaan gelin doonaa marka qoraalka quruxda meeshaan waan qurxinaynaa marka si aan u qurxino meeshaan wax kale ma sameynayo input type-kaan bedeli doonaa input type markaan bedelayno class input ku jira sax class input-kaana waxaan ka dhigi doonaa marka backgroundkiisa colorkiisa okay
class aan isticmaalayno waxay noqon doonaa marka inaan dhahno tusaale ahaan class input meesha xogta la gelinayo waaye class input wuxuu noqon doonaa marka wax kale ma noqon doono waxaan leenahay widthkiisa baliciisa waxaa ka dhigtaa tusaale ahaan wax kale aan ku sameynin 40% ka dhig balaca so 40% markii laga dhigo balaca waxaad arki doontaa in widthka uu weynaanayo uu fidayo so meeshaan inputka suu u fido wax kale ha isticmaalin waxaa samaysaa tusaale ahaan meesha markaa joogtid inputka maadaama uu input yahay dot input tusaale ahaan meesha waxaa noogu qoran name text type method saas waay sax okay wax kale ha sameynin inputkan meeshaan yaalo so widthkeena markuu yahay 40% marka la joogo inputka so waxaa jira marka inputka waxaan sameyn karnaa anagoo inta isticmaalayna class inaan meeshaan ku sameyno so classka markaan rabo inaan sameeyo waxaan leeyahay class waxaan leeyahay equal wuxuu la mid yahay input so input markaan dhaho classkan wuxuu ku dhex jiraa inside the inputka kanoo iska dhaafi kartaa daartid laakiin kanaan isticmaali doona anaga functionka isticmaalayno kanuu noqon doona okay kan waa iska tiraynaa haddaan rabno ma u baahnin sidoo kale kan waan tiraynaa ma u baahnin so inputkan wuxuu ku dhex jiraa meeshaan loo yaqaano class inputka so class inputkana waxaan rabaa marka inaan bedelo so markaan rabo inaan bedelo widthkiisa wuxuu noqon doonaa enter data search engine-ka widthaan u sameyn doonaa so widthanka aan rabo inaan u sameeyo waxaan tagi doonaa meeshaan waxaan leeyahay widthkiisa waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan content% ka dhig content% markaan ka dhigo sidoo kale font size-ka ama size-ka farta ay noqonayso waxaan leenahay font size farta waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan 15 pixel oo kale so 15 pixel markaan ka dhigno waxaan tagi doonaa refresh aan leenahay control s refresh aan leenahay meeshaan datada ku qormayso waxay noqon doontaa sida tan so weli waxaa ka khaldan so waxaan leenahay meeshaan waxaan tagi doonaa halkan waxaan ka dhigi doonaa 20 ama 25 ama 20 pixel oo kale aan ka dhigi doonaa kadibna waxaan leenahay refresh control s aan leenahay kadibna waxaan leenahay refresh so waa ujeedaa meeshaan so bedding aan u sameynaa marka bedding textiga meesha la gelin lahaa tusaalaan qoraalka inuu kasoo sigto waxaan leenahay beddingkeena waxaan ka dhigi doonaa tusaalaan 10 pixel oo kale 10 pixel left right corner okay meel walbo 10 pixel aan kasoo sikan doonaa kadibna waxaan leenahay refresh waa ujeedaan datada meesha ay ku qormayso waa way balaaratay hadda so waxaan sameyn doonaa marka waxaan u sikin doonaa dhinacan margin leftiga markaan rabo inaan u sikiyo waxaan leeyahay tusaalaan margin lefty wax kale u sameyn waxaa u sikataa tusaalaan margin lefty aa leedahay margin left markaa dhacid tusaalaan meeshaan waaye margin left leh so margin left markaa dhacid waxaa qori doontaa tusaalaan 10% inaan sigtaan rabaa 10% markaa rabo inaan sigto refresh aan leeyahay control s aan leeyahay kadibna refresh aan leeyahay 10% weli waxaa ka khaldan 20% aan sikanaynaa tusaalaan 20% markaa rabo inaan sigto 20% aan ka dhigaa kadibna control s aan leeyahay kadibna waxaan leeyahay refresh so markaan meeshaan maraayo 20% aan sigto weli waxaa meeshaan spacekan mislo so waxaan ka dhigi doonaa 23% markaan ka dhigo ama 22% markaan ka dhigo labada space waa isla ekaan doonaa insha Allah so waxaan leeyahay refresh so ujeedaan meeshaan waa isla eegyiin meeshaan waa meesha datada la gelin lahaa xogta la gelin lahaa hadhow xogta markaa gelisid meeshaan waxay yeelan doontaa meel datada la geliyo kadibna datada ay kasoo baxda so anaga waxaan sameyn doonaa hadda cashirkan waa cashirka koowaad waxaanu ku sameyn doonaa kaliya CSS-ta si waqtiga uu noo saacido waxaan leenahay cashirkan maanta baartigan waxaan ku qaadan doonaa CSS-ta sida loo soo muujiyo so CSS-teen hadda waxaa ka dhiman kaliya button inaan kusoo darno so buttonka markaan rabo inaan kusoo daro wax kale ma sameynayo waxaan leeyahay meeshaan markaan joogo waxaan tagi doonaa halkan meeshaan inputkan waxaan ku qori doonaa sidoo kale input aan leeyahay so input markaan dhaho typekiisa wuxuu noqon doonaa submit it means data la gelin doonaa yani data kugu xiri doonaa button uu noqon doonaa submit aan leenahay button uu noqon doonaa sidoo kale name loo isticmaalaa name loo isticmaalaa namekiisana wuxuu noqon doonaa btn waa button sidoo kale class aan siin doonaa class namekan waxaan ka dhigi doonaa btn ama button name-ka aan fahno waa php-ga tagga markii lasoo akhrinayo buttonka markii kaliya la siiyo tagga markii laga soo akhrinayo php waxaa la siiyaa name sidoo kale class-kan waxaa CSS markaan isticmaalayno so sidoo kale placeholder muu leeyahay waa maya laakiin wuxuu leeyahay wax loo yaqaano default ama value qiimuu leeyahay qiimahaasna wuxuu noqon doonaa meesha wax kusoo qormaayo tusaalaan buttonkaas value kusoo qormaayo tusaalaan hadda saan dhaano tusaalaan oo aan save dhaano control s aan dhaano meeshaan fiiri oo aan refresh lo meeshaan kaliya waxaa kusoo qormaya submit so submitkan ma u baahani marka waxaan u baahanahay submitkan
inaan ka bedelo magaca aan u baxsado soo magaca markaan rabo inaan u baxsado wax kale ma sameynay waxaan leeyahay meeshaan aan joogo waxaan leeyahay value aan siinaa qiimaan siinaa value aan leeyahay value aan siinaa wuxuu noqon doonaa search value aan siinaa wuxuu noqon doonaa equal search in wax la raadiyo data la raadiyo search aan leeyahay doonaa value wuxuu noqon doonaa search so control s aan leeyahay waana save gareyn doonaa waa ujeedaan wuxuu isku bedelay search so waxaan rabaa inaan halkaan keeno si aan halkaan u keeno wax kale ma sameynay css aan kusoo dhaqaajinaa si css aan ugu soo dhaqaajiyo nameka css taansi wuxuu ahaa classkiisa .btn ama button uu ahaa okay markaas saas dhaano control s aan leenahay control s buttonkan waxaan leenahay backgroundkiisa waxaa ka dhigtaa tusaale ahaan maadaama uu button yahay backgroundka waxaa ka dhigtaa meesha background horta muxuu noo yahay orange uu noo yahay black aan ka dhigaynaa backgroundkiisa black aan ka dhigaynaa sidoo kale colorkiisa waxaan ka dhigaynaa white colorkiisa waxaan ka dhigaynaa white sidoo kale margin top hoosaan ugu soo sikanaynaa waxaan leenahay margin top aan leenahay margin top aan leenahay margin top waxaan leenahay 20% oo kale margin top 20% inuu soo sigto kadib waxaan leenahay control s waxaan leenahay refresh waxaa ujeedaa margin top inuu hoos usoo sigtay isla soo wada sigteen so waxaan u baahanaa inaan div geliyo hadhow waxaa soo baxaya marka div markaan geliyo ama bar aan dhaho tusaalaan meeshaan waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano bar si uu hoos uga soo dego okay markaan saas dhaho control z leh control y control y control y control s leh okay meeshaan waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano bar slash bar aan leeyahay ama bar caadi aan isticmaali doonaa si datada hoos ay ugu soo degto aan u isticmaalo so 20% kan waa iska dhaafaa control s aan leeyahay okay datada hoos ay usoo degay fiiri search engine tan hoos u imaana so hoos u imaada ujeedaan meeshaan waxaan soo sikinaa marka backgroundkiisa iyo waxaan bedelaa sizekiisa so width wax kale ma sameynaayo halaanaan soo koobiyeysanaa wax kale ha sameynin koobide kadibna inta ku paste garee marka meeshaan ku paste gareysid control s leh refresh leh so control s refresh markaa dhahid waxaa soo bixi doona buttonka inuu weynaado so buttonka zaidkan inuu weynaado marabo okay waxaan sameyn doonaa waxaan leeyahay buttonkan maadaama aan rabin inuu weynaado waxaan leeyahay waxaan ka yareyn doonaa ama isla ekeysiin doonaa wax kale ma sameynayo okay sizekiisa waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan 60% oo kale aan ka dhigi doonaa sizekiisa inay isla ekaadaan la rabaa searchiga iyo buttonka wax lagu raadinayo so marka okay weli wuu ka weyn yahay wax yar aan soo 52 camal aan ka dhigo 52% ama 53% aan ka dhigno control s aan dhaano kadibna waxaan leenahay refresh so markaan refresh dhaano wax yar oo waxaanan ahayn tusaalaan 53.4 oo kale control s leh kadibna refresh leh weli wax yar oo meel dheer ah tusaalaan 4.4 oo kale ka dhig 44 oo kale ka dhig control s leh kadibna refresh leh waa kaas datada ku darsantay so waxaan ka tirtiri doonaa marka borderkan meeshaan leh waxaan ka dhigi doonaa border waxaan lahayn so waxaan leenahay borderkiisa none ka dhig borderkiisa waxaan ka dhigi doonaa wax loo yaqaano none it means there is no border wax border inuu yeesho ma rabo sidoo kale waxaan leeyahay margin top yani inuu wax yar ka soo sigto waa isku dhagan yihiin margin top inuu wax yar ka soo sigtaan rabaa tusaalaan waxaan leeyahay tusaalaan meesha markaan joogo margin top aan isticmaalaa marka margin top inuu wax yar ka soo sigto waxaan leeyahay 10 pixel oo kale ka soo sigto control s leh kadibna refresh leh so markaan refresh dhaho waxaan arki doonaa wax yar uu ka soo sigtay meesha waxa lagu qori karaa search waa kaas so waxaan rabaa marka inaan border radius u sameeyo yacni geesaha aan ka jijibiyo so si geesaha aan ugu jijibiyo meesha waxaan ku dari doonaa meesha wax lagu daraayo midka koowaad waxaa waaye input type waaye inputka waxaan dhihi doonaa border radius aan leeyahay border radius markaan dhaho waxaan dhihi doonaa 10 pixel oo border radius geeska soo jebi sidoo kale intan waxaan ku dari doonaa border 10 pixel ah kadibna geesuu kasoo jabi doonaa waxaan leenahay border radius waxaan leenahay border radiuska waxaan dhihi doonaa 10 pixel control s aan leenahay kadibna waan ku laaban doonaa kadibna waxaan leenahay refresh so markaan refresh daan ujeedaan border radiuska geesaha uu kasoo jabay sidoo kale meeshan shadow uu leeyahay shadowga inaan ka saaran rabaa shadowgaas aan rabo inaan ka saaro wax kale maan waxaan tagi doonaa inputka meesha searchinka inputka markaan meeshaan tago waxaan ka saari rabaa borderka yacni border uu leeyahay laakiin waxaan leeyahay borderkiisa waxaan ka dhigtaa sidii kii hore camal nan aan ka dhigaynaa borderka waxaan ka dhigi doonaa nan control s aan leenahay kadibna shadowga meeshaan leh uu ka bixi doonaa control s refresh leh waa kaas shadowga uu ka baxay insha allah intaan cashirkan cashir lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu